kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halka aad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona weerarkii ugu dambeeyay ee weerar dhowr jiha oo laga hayo Tigreega oo sii xoogaysta waxay tahay aragtida garyaqaanada Soomaaliyeed ee go'aankii maxkamadda ICJ iyo dhaqdhaqaaqyo culus oo ka bilowday duleedka Gurceel maxaana soo kordhay daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan weeraro cir iyo dhul ah oo ciidamada Itoobiya iyo xulafadooda ay ku qaadeen mucaaradka Tigreega ayaa xoogaystay waxaa sidaas sheegay afhayeenka u hadlay xogaga Tigreega afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa warbaahinta u sheegay in militariga Itoobiya ee dhowr jiha kala dagaalamayaan Tigreega kuwaasi oo ka mid ah gobolada Amhara iyo Afeera ee dariska la ah afhayeen u hadlay militariga Itoobiya kama jawaabin codsiga falcelinta oo loo diray militariga iyo dawladda Itoobiya ayaana weli wada weerarka cusub oo TPLF ay sheegtay inuu bilowday toddobaadkii tagay maalimo kadib markii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed loo dhaariyay muddaxileedkiisa cusub waa dagaal socdo tirada khasaaraha aad ayay u xoogan tahay ayuu yiri Getachew oo intaasi ku daray inuusan bixin karin faahfaahin ku saabsan tirada dhimashada iyo dhaawaca wuxuu sheegay in dagaalada ay ka socdaan magaalada Waldiya ee gobolka Amhara iyo deegaanka Hera iyo Javira ee gobolada afar meel ku dhow xuduudda gobolka Amhara dagaalka cusub ayaa sare u qaaday cabsida laga qabay inay sii xumaato xaaladda Itoobiya oo ay ku yihiin ugu yaraan 109 milyan oo qof dhinaca kale shaqaalaha gargaarka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalyahanno Eritrean ay weli ku sugan yihiin gudaha Itoobiya ayna ka qayb qaadanayaan dagaalkaasi ilwaradee lagu korsoon yahay ayaa sheegay in ciidamada Eritrea iyo Tigreega ay kula dagaalamayaan magaalada Berhele ee gobolka Afeer wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay inay ka fikirayso cunaqabateyn dhaqaale oo lagu cunaqabateynayo dhinacyada mas'uulka ka ah rabshadaha Itoobiya haatana kadib go'aankii maxkamadda kama dambaysta ahaa ee ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ oo Soomaaliya u xukuntay inta badan kiiska badda ayaa waxaa siyaabo kala duwan looga hadlay xukunka ay riday maxkamadda ICJ Dr. Ahmed Cali Khayr oo ah qareen qabiir ku ah arrimaha la isku hayo aadna ula socday dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka hadlay sida uu arko go'aanka ay gaartay maxkamadda iyo waxa ay ku saleysan tahay xukunka kama dambaysta ah ee ay riday qareenka oo wareysi siinay laanta afka Soomaaliga ku hadasha ee VOA ayaa shaaca ka qaaday in ICJ ee go'aankeeda ku saleysay xaaladda guud ee labada dal iyo tan gobolka isla markaana wax ku qiimeysay in labada dal wax loo ogolaado waa sida uu hadalka u dhigay Ahmed Cali Khayr oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in go'aanka uu arko mid wanaagsan isla markaana ay tahay inay raacaan labada dal anigu waxay ila tahay go'aankaasi wuxuu ku saleeyay in labada dalba wax loo ogolaado iyada oo la fiirinayo xaaladda guud oo aan qaanuun kaliya la fiirinayno oo macmal siyaasadeed xaaladda gobolka waana go'aan wanaagsan oo labada dal inay raacaan ay wanaagsan tahay sida aan u arko ayuu yiri Dr. Ahmed Cali Khayr sidoo kale wuxuu intaasi ku daray marka la fiirso xeebta Soomaaliya iyo Kenya u dhaxayso dhib badan ma ka muuqdo laakiinse waxaa moodaa in maxkamaddu nidaamkii ay awal isticmaali jirtay ee ka tagtay dhinaca kale wuxuu hoosta ka xariiqay inay sheegashadii hore ee Soomaaliya ay lumisay 15% halka Kenya iyaduna ay weysay 85% dhaqaalaha markii guud ahaan loo fiirsho Soomaaliya wax badan ma ay luminin Kenya ayaa dhul badani meeshaasi ku lumisa ayuu sii raaciyay hadalkiisa si kastaba kiiskan ay guusha ka gaartay Soomaaliya oo loo xukmiyay biyaha la isku hayay ayaa soo socday muddo 7 sano ah wuxuuna bilaabday sanadkii 2014 haatana wararka naga soo gaaray gobolka Galgaduud ayaa sheegay in xalay ilaa isaak dhaqdhaqaaqyo culus oo iska soo horjeeda ay ka bilaabdeen deegaano hoostaga magaalada Gurceel oo ay dhawaan qabsatay Ahlus Sunna wal Jamiica Galmudug ayaa xoojisay abaabulka dagaal ee ka socda gobolada Galgaduud sidii dib looga saari lahaa magaaladaas wararka ayaa sheegay in saaka ciidamada ugu badnaa oo ay wata gaadiidkooda dagaalka ay ka baxeen magaalada Dhuusamareeb iyagoo gaaray deegaanada Ceel Dheere halkaasi oo ay ka sameysteen fariisimo ciidan iyagoo oo ku biiray ciidamo hore u sugnaa halkaasi ciidamadan ayaa qayb ka ahaa gulufka dagaal ee Galmudug ku wajahaysa Ahlus Sunna oo ay dib ugu soo rogaal
celisay deegaanada maamulkaasi. dhinaca kale ciidamada ahlu sunna ayaa dhankooda dhaqdhaqaaqyo ka wada magaalada Gurceel waxaana heegan la geliyay askarta ku sugan gudaha magaaladaasi. dadka deegaanka ayaa dhanka kale lagu soo waramayaa inay bilaabeen barakac xooggan waxaana soo wajahay cabsi ka dhalatay dhaqdhaqaaqyada ay wadaan labada dhinac. wali ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo ku aadan dhaqdhaqaaqyadan haatan socdo ee u dhaxeeya ciidamada Galmudug iyo kuwa ahlu sunna. xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana markasta laga cabsi qabaa in dagaal u qarxo maadaama labada dhinac ay xoojinayaan abaabulkooda dagaal. daawadayaal intaas ayaa ku soo afmeeraya war wixii dalka iyo daafaha caalamkan idinkaga haynay. wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray oo ii akhrinay anigoo ah Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah.